wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Mutahi Kagawa oo shalay hortagay guddiga baarlamaanka ee baaritaanada ku sameynaya lacagaha loogu talagalay in lagula dagaalamo cudurka COVID-19 ee dalka Kenya taasoo la sheegay in lacagahaasi la lunsaday waxa uuna wasiirka uu waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu farageliyay qandaraasyo uu bixiyay maamulka qaabilsan soo iibinta sidoo kale iyo qaybinta agabka iyo dawooyinka caafimaadka ee dalka Kenya ciidantani loo haysto wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya ayaa waxa sheegay madaxii fulinta maamulka KEMSA oo si kumeel gaar ah shaqada looga istaajiyay John Manjari ayaa xilli uu ka soo muuqday guddiga caafimaadka ee aqalka sare ayaa sheegay in wasiirka caafimaadka uu amar siinayay isagoo adeegsanaya wicitaano fariimaha gaagaaban waxa uuna intaasi ku daray inuu cadaadis joogto ah uu ku hayay wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Mutahi Kagawa iyo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda Susan iyo taliyaha militariga kaasoo uusan xusin magaciisa Kagawa ayaa ku nuuxnuuxsaday in laga been sheegay waxa uuna cid kasta oo isaga eedeynaysa ka dalbaday inay cadeemo wax ku ool ah soo bandhigaan inta aysan eedeen wasiirka caafimaadka dalka Kenya ayaa baarlamaanka u sheegay inuusan door ka ciyaarin inuu saameyn ku yeesho cid qandaraasyada helaysa isla markaana la siinayo haddii ay dhacdo inaan ku iraahdo agaasimaha guud inuu sameeyo wax sharciga ka hor imaanaya waxa caadiga ah in lagu sameeyo dawladda waa in amarada lagu dalbado qoraal ayuu yiri wasiirka caafimaadka dalka Kenya waa shaqadayda inaan dadka cadaadis saaro si aan natiijooyin u soo saarno shaqadaydu ma ahan in dadka aan u sheego inay dambiye galaan fadeexadani musuqmaasuq ee lala xiriiriyay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa si weyn waxa looga hadalhayaa gudaha dalka Kenya waxaana hadda baaritaano ku sameynaya guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalka Kenya Cabdishakuur Faarax Igale Honkable TV magaalada Nairobi magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bisha oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha